shirkaddu waxay ku guuleysatay shahaadada ISO ISMS oo ah ilaalinta xogta macaamiisha. waxaa na siiyey shahaadadaas shirkad magaceeda la yiraahdo Bureau Veritas oo ah shirkad caan ah oo soo shaqeynaysay ilaa 1828. shahaadadu waxa ay kor u qaaday sumcaddii iyo sharaftii shirkadda. waxa ay soo jiidatay hay'ado badan iyo organizationno badan oo markii ay ogaadeen aad noogu muujiyay inay daneynayaan annaga in ay na aaminaan maadaama aan qaadanay shahaadadaas magaca leh. shahaadadan inaan qaadanno waxaa noo saamaxay 2 qodob. qodobka koowaad oo ah shaqaalaha shirkadda oo ahaa shaqaale qualified ah oo intooda badan master degree ku ah information security. qodobka labaadna uu ahaa in aan hore u haysanay shahaadada ISO Quality Management System oo ah hab maamul wanaagga tayaysan ee shaqada shirkadda. labadaas qodob ayaa noo saamaxday. waxa aan horey u diyaarsanay in aan ku diyaar garowno in aan networkgeena iyo daatada iyo wax kasta oo shirkadda ay u baahnayd aan sikuur hore uga dhiganno. annagoo diyaar ayaa markaas go'aan waxaan ku gaarnay inaan shahaadadii qaadanno. waxayna nagu qaadatay muddo 6 bil ah oo keli ah maadaama hore aan ugu diyaar garowno. shirkadda Hormuud waxa ay sare u kacday sumcaddeedu iyadoo awalba aad u ilaalin jirtay macaamiisha sumcad fiican lahayd iyo misna waxay ku sii heshay sumcad ka sii dheer lagu aaminay laguna farxay. macaamiishana sidoo kale waxa ay ogaadeen hantidooda iyo macluumaadkooduba inay ku jiraan gacan safe ah oo mar labaadna ay arkeen miraayad ay ku aamini karaan sumcaddooda. waxaa dhacday hay'ado iyo organizationno ka mid ah macaamiishaas inay xataa u soo hambalyeeyeen kuna farxeen muujiyeen heerka ay ka taagan yihiin farxadda markii ay ogaadeen Hormuud in ay qaadatay shahaadadaas.